kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada mar kale barnaamijka Kalsan bandhiga Kalsan oo xiliyadan oo kale maalmaha Isniinta, Talaadada, Arbacada iyo Khamiista aanu idinkaga soo gudbino si toos ah stuudiyaha aanu ku leenahay magaalada London. daawadayaal barnaamijkeena waxaynu ku falanqaynaa arrimaha ku soo kordha xaaladda waddanka Soomaaliya, guud ahaan caalamka iyo dhinacyada technology-ga iyo waliba arrimaha ku saabsan Facebook iyo Soomaalida waxyaabihii ugu dambeeyay ay ku sheekaysanayeen ciyaarihii iyo arrimo kale. haddaba qodobada aan maanta barnaamijkeena idinkugu hayno waxa kamid ah shirkii ka socday Turkiga iyo xaaladda wararka ka soo baxaya iyo Soomaaliya iyo Turkiga oo la leeyahay heshiisyo ay gaareen. waxa soo kale aanu barnaamijkeedii kugu soo gudbin doonaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo isagu wacd ku maray inta aanu xilka ka degin inuu xiri doono xabsiga Guantanamo Bay oo uu 7 sano ka hor u ballan qaaday inuu xiri doono balse wali aanu ku guuleysanin. wararka kale aanu barnaamijkeedii kugu hayno waxa kamid ah ciidamo si qarsoodiya saldhigyo uga sameystay wadanka Liibiya kuwaas oo ka kala socda wadamada Faransiiska iyo Mareykanka. shacabka wadanka Liibiya oo sheegaya inay u arkaan wadankooda in la doonayo in la gumaysto isla markaana laga qaato khayraadka uu wadanka hodanka ku yahay ee shidaalka. Sacuudiga iyo Lubnaan oo xaaladoodu ay marayso meel aad u xun. Sacuudiga oo markaa dalbanaya dadkiisa in aanay u safri karin wadanka Lubnaan isagoo ka cabanaya qaar kamid ah wasiirada dawladda Lubnaan oo uu sheegay inay markaasi u shaqeeyaan kooxda Xisbullah ee Shiicada wadankaasi. arrimahaas ayaan ku eegaynaa. waxa soo kale barnaamijka qaybta technology-ga maanta aanu ku haynaa Ruushka oo sheegay inuu markaa tababar casriya siiyay oo la isticmaalayo iyo si gaar ah loo tababaray kuwaas oo leeyahay qofka inuu doonayo inuu dhibaato geysto iyo in kale waxay ka garanayaan marka ay lugihiisa u soo dhawaadaan. iska daa boorsooyinkii la baarayay iminka waxaa la marayaa dhaqdhaqaaqa qofka eega inuu garan karo ay leeyihiin Ruushka. haddaba sheeko la yaab leh ayaa soo socota oo aanu arintaa idinkaga hayno. adduunyada maalin walba waxbay soo kordhinaysaa, annaguna waan idiin soo gudbinaynaa. daawadayaal intaas ayaanu barnaamijka ku faaqidi doonaa inta aanu ku jirno barnaamijkan bandhiga Kalsan. haddaba ugu horeyn barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa sida aad la socotaan wadanka Turkiga maalintii labaad ayaa waxaa ka dhacay shir Soomaalida iyo beesha caalamka iyadoo shirkaasina dawladda Turkiga ay kaalin weyn ku lahayd in dadka la isu keeno. haddaba shirkaasi inta uu socday waxaa shir barbar socda oo gaara yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan. waxyaabaha ugu waaweyn ay ka wada hadleen waxa kamid ah iyadoo looga mahad celiyay Turkiga sida uu u garab taagan yahay Soomaaliya. waxa soo kale Turkiga ay sheegeen inay Soomaaliya dhawaan ka dhisi doonaan saldhig weyn oo ciidan oo Turkigu leeyahay kaas oo lagu tababari doono ciidamo xoog leh oo ay Soomaaliya yeelan doonto. sidoo kalena Soomaaliya la sheegay in saldhigaasi wax weyn uu tari doono lagana ilaalin doono kuwa doonaya Soomaaliya inay dhibaato u geystaan. Rajab Tayyip Erdogan waxa uu sheegay in maalinta la furayo saldhigaasi uu isku soo beegi doono oo uu tagi doono kana qayb gali doono xafladda. waxa soo kale halkaasi lagu soo bandhigay oo looga hadlay arrimo muhiim ah oo ku saabsan in shirkadaha wadanka Turkiga ay ka dhisayaan wadanka Soomaaliya tamar ama koronto iyo biyo si markaa ay maalgashayaasha ama shirkadaha doonaya Soomaaliya inay maalgashadaan ay u helaan koronto ku filan iyo biyo ku filan. iminka waxa leeyahay dhibaatooyin badan ayaa ka haystay shirkadaha maalgashiga inay Soomaaliya maalgeliyaan maadaama korontadii iyo wixii aan la isku haleyn karin. haddaba arinta ayaa sidoo kale lagu heshiiyay. Turkiguna waxa uu ballan qaaday Soomaaliya inuu dhinac walba garab taagan yahay oo uu markaa ku dadaali doono in markale Soomaaliya ay sharafteedii soo ceshato. dhinaca kale haddaan usoo laabano shirkii labada maalmood ee ka socday wadanka Turkiga ayaa isagana waxa ujeedadiisu ay ahayd in beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliya ay isku update gareeyaan. shirka magaciisu wuxuu ahaa shirka sare ee lixaad ee kulanka Soomaalida iyo beesha caalamka kaasoo horey
kulamo kale ay u soo yeesheen Soomaalida iyo beesha caalamka waxaana la isku faahfaahinayay qolo walba markii shirkii ugu dambeeyay wixii ay qaateen iyo wixii u qabsoomay waxaana imika la sheegayaa in shirar kale loo balansan yahay arinta ugu weyn oo laga hadlayo waxa ay mustaqbalka Soomaaliya doorashooyinka soo socda iyo arimo kale haddaba waxaa khadka telefoonka si toos ah ugu jira injineer Maxamed Maxamuud Cali oo kamid ah aqoon-yahanka Soomaalida ah waxaana uu si weyn ula socdaa xaaladda waddanka Soomaaliya injineer Maxamed mana maqlaysaa waa ku maqlayaa nadaara injineer waxaad nooga warantaa arintan Turkiga iyo Soomaaliya heshiiskan ay kala saxiixdeen faa'iidada uu Soomaalida u yeelan karo iyo guud ahaan shirkan ka dhacay waddanka Turkiga labada maalmood socday waa maasan tahay nadaara shirka saaka ayuu furmay shirkaas oo loogu magac daray madasha lixaad higsiga in Soomaaliya dawlad laga sameeyo isla mar ahaantaana muxuu hadday noqon lahayd doorashada soo socotana wax loo qabto runtii heshiiskaasi iyo wadahadalkaasi socda maanta unbuu furmay waxaa furay goobtii ka furay shirka madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka furay Xasan Sheekh oo ugu warramaya xaaladda Soomaaliya sidii ay ahayd in heshiiskaas meesha la isugu yimaado ay kasoo qayb galaan Soomaalida oo idil laakiin waxaad moodaa weli in ay kaamil ahayn sidii qaar ay maqan yihiin haddana mushkiladda ay jirto shirarkan lagu qabanayo dibadana ay iska dhibaataysi wadato laakiin madaxweynihii Turkiga wuxuu ballan qaaday inuu mashaariic badanna uu ka qaban doono xagga ciidanka iyo dhanka kaleba iyo isla mar ahaantaana inuu waxbarashooyin siin doono dalka Soomaaliya waa tahay arinta ugu muhiimsan Soomaalida la leeyahay si gaar ah bay u khusaysaa wuxuu ahaa kulankii gaarka ahaa ay yeesheen intii shirkaas uu socday madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Turkiga iyadoo Turkiga ay sheegeen dhawaan saldhig military oo weyn Soomaaliya inay ka dhisi doonaan saldhigaasna ciidanka Soomaaliya lagu tababari doono runtii Soomaaliyana ay u noqon doonto meel ay isku ilaaliso maadaama dunida iminka dhibaatooyin badan ay ka jiraan dalal badanna Soomaaliya ay dana ka leeyihiin arinta kale meesha ku jirta waxay ahayd in dhinaca tamarta ama korontada iyo biyaha Soomaaliya si weyn looga qabtiri doono oo shirkado Turkiya ay iman doonaan oo Soomaaliya korontadeeda ay noqon doonto mid cidii doonaysa inay maal gashato Soomaaliya ay isku haleyn karto haday warshado tahay hadii qalab kale la geynayo marka heshiisyadaas ka waran dadka Soomaalida ah maxay faa'iido u leedahay والله نظهروا هدي أن دبقون لقرنا مركي تركيا أي صوماليا بالوضع إنه وحيابا كقبطو وحي سميسي عسبتالي سميسي أربوط حتى وحيابا كقبطي مشاريع إقبطي أي جرة كل دولة تركيا أيضا وحي محوها وحي مكالذة هاي قرشون بكوة صوماليا وحدنا قود ماشان وحسان وصفالي مجرى أيضا وحيلا دانا هيدا وطا Soomaalida dawladdan waxa laga rabaa xukuumaddan ayagana inay danahooda fuliyaan ay ka fiiriyaan mashaariicda ay sheegayso waxaan ka soo qaadanay mesela isbitaaladan hadda ay ka fureen Soomaaliya in lacag laga qaado oo sidii qorshihii loogu talagalay ee dawladda xisaabtamin oo dadkii markii oo qof u galayo ugu yaraan $100 laga qaadayo awalka horna heshiiskan wuxuu ahaa inay mucaawin ay noqoto mashaariicdaas kale hadda ay filayaan waxba laga faa'iideysanaya laakiin waa mushkilada jirto waxay tahay hadii aan wada hadalkii oo si loo doondoolin ama aan laga fikirin oo la qorsheynin la yiraahdo wixii hadii wixii mucaawina ay wixii kala saaro laakiin hadii la wixii waa mucaawina haludana ee lacag noqoto hadda mashaariicdan ay ballan qaadeen hadday noqon lahayd muxuu ahaa mashaariic xagga oo tamarta iyo mashaariicdan kale ay qabanayso wixii la qabanayna laakiin haludii lacag wuxuu soo bedelaya marka dawladda ayaga laga rabaa in wixii kala garayso hadii wixii ay lacag ku
rabaana idinka jijiso ummadda masaakiinta oo iska dhibaataysan oo haddii koronto la-aanta iyo biyo la-aanta iyo dhibaatooyinkan badan ee haysatana ayna ku kalifin inay dadkii haddana lacag kale lagu sii kordhiyo marka waxaa loo baahnaan lahaa dowladda arrintan kaba dadka arrimaha u loondooleeda arrimaha siyaasadda soomaaliyana waxa ay leeyihiin in turkiya ay qorshaha ay wata in faa'iido ugu jiran soomaaliya ay un tahay dal kalo haddana la haysto laakiin waxaa loo baahan yahay shirarkan dibadda lagu qabanayo sideedaba wax ay soo kordhinaysa male 100 jeer ayaa lagu qabtay muxuu ahaa dibadaha waxaa ka wanaagsan in soomaaliya ay ayada tashato ay isu timaado ay wada hadlaan ayadoon aan la oranaynin hebel waxaa wata maraykan hebel waxaa wata ingiriiska hebel waxaa wata sacuudiga hebel waxaa wata ayadoon la oranaynin dadka intay isu yimaadaan dantooda ka tashtaan haddii taa dhici weysana un sidaas ubaa la figa daba ordayaa ilaa iyo soomaaliya ay runtii baaba'do marka kulleyba waa tahay injineer maxamed qadka kusii jir maadaama aada marti noogu tahay maanta barnaamijka bandhiga kalson arrintii turkiga iyo shirkii soomaalida halkaas loogu soo gabagabeeyena inta aynu ka gudubno iyo heshiisyada soomaaliya iyo turkiga ay si gaara u yeesheen haddaba wixii arrimaha kusoo kordhana waanu idiin soo gudbin doonaa markan aan u weecanno iyadoo qaybihii kale ee technologigii wixii soo kordhay iyo akhbaaraad kale ay noo soo socdaan markan aynu galno madaxweynaha waddanka maraykanka barack obama ayaa mar kale wacad ku maray in uu doonayo in uu markaasi xero xabsiga weyn ee la yidhaahdo guantanamo bay kaasoo ay ku xiran yihiin dad loo haysto inay xiriir la leeyihiin ama ay ka tirsanaayeen argagixisada caalamiga obama markii lasoo dooranayay 7 sano ka hor ayuu wacad ku maray in marka la doorto shacabka maraykankana uu ka ballan qaaday inuu xabsigaasi xiri doono hase aatee 7 sano oo uu madaxweyne ahaa way u suurtoobi weyso inuu xidho isagoo cadaadis badan kala kulmay qolyaha mucaaradka ee xisbiga jamhuuriga oo sheegay tallaabadaasi inaanay marnaba dhici karin haddaba waxaa la leeyahay iminka maxaa soo cusboonaysiiyey 7 sano obama waa uu diidanaa ama waa uu doonayay inuu xidho balse waa ku guul daraystay isagoo iminka xilka inta uu hayo ay wax yar uun ka harsan tahay sidee ugu guulaysan karaa haddaba waxaa telefoonka ku jira aan maanta barnaamijka ku marti qaadnay injineer maxamed maxamuud cali injineere may maqlaysaa mar kale si fiican ku maqlaynaa injineer de markan 7 sano obama markii ugu horeysay oo doorashada uu isu soo sharaxayay waxyaabihii uu ololihiisa uu dadka maraykanka ka dhaadhicinayay sidaan la soconno waxay ahayd waxaan xiri doonaa guantanamo bay haddana weli waa uu furan yahay 91 maxbuus baa ku xiran hadda ayuu wuxuu leeyahay waa xirayaa isagoo iminka sanad iyo wax ka yar ay ka harsan tahay inta uu kursiga kusii fadhinayo maxaa hadda kasoo yeersiiyey ma isleedahayse wuu ku guulaysan karaa 7 sano wixii uu ku guul darays nadaha waa ku mahadsan tahay inkastoo horta aan rabi lahaa inaan xogaa taariikh dib noo celiyo ilaa iyo 2000kii markii 2001kii ilaa markii dhacday qorshihii lagu burburiyey labadii mataano ee bildanadii ku yeelay maraykanka dabeetana ay sheegteen qolooyinkan oo muxuu ahaa alqaacida ee jooga afghanistan ay leeyihiin muxuu ahaa annaga ayaa ka dambeynay dabeetana George W Bush oo xilligaas uu ku qaaday 2002 ilaa ku qaaday dagaal culus oo uu ku soo qabqabtay dad gaaraya 100 iyo googo in ka badan qorshaha uu u sameeyay arrintaas oo weerarka ugu qaaday oo dadka soo qabtay oo xabsigaas aad aragtay uu u sameeyay Guantanamo waxay ahayd inuu ku soo jiito maraykanka iyo caalamka guud ahaan dadkii dhibaatada geystay oo adduunyada dhibaatada ku haya inaan meel ku xirno waa sida uu muxuu ahaa George Bush oo arrimahaas oo muxuu xaggaas siyaasadda ugu talagalay wayna ugu socoto ilaa muddo ayuu arrintaa watay marka arrimahan markaan usoo noqono Obama marka la dooranayay laftigiisu wuxuu qorshahaas la yimiday in muxuu ahaa bacdama pressure badan jiraan xagga ururadan muxuu ahaa xuquuqda aadamaha u dooda iyo caalamka in arrintan ayna dan maraykanka ugu jirin in xabsigaas uu sii jiro marka doorashadiisa waxay ka mid ahayd inuu ballan qaaday in uu xiri doono muxuu ahaa xabsigaas guud ahaanba
qorshahaasi ama uu wadayna dad badan waa kasoo horjeedeen xisbiga mucaaradka waa kasoo horjeedeen arrintaasi muxuu ahaa ilaa ballanqaadkiisi markuu madaxweynaha noqdayna ilaa muddo ayuu arrintaasi waday oo uu socodsiinayay dadka ka hor yimidna waxaa kamid ah xitaa qaar xisbigiis kamid aha ayaa ka hor yimiday oo culays ku hayay xataa waxaa la isku dayay in meesha laga soo qaado oo loo soo wareejiyo maraykanka oo muxuu ahaa oo xabsiyada maraykanka la keeno dadkii ka hor yimid dadka ninka u hadla House of Speakerka Paul Ryan ayaa kamid ahaa dadkii diiday in la soo wareejiyo muxuu ahaa maxaabiista taas oo khatarta ku ah maraykanka. waa tahay engineer aan kaa dhex galo arrinta hadda la leeyahay Obama 7 sano wuxuu raadinayay inuu xiro Guantanamo Bay hadda oo wax yar u harsan tahayna runtii lama ogaa inuu ku guuleysan karo in kale sababtan ma loo fasiran karaa doorashooyinkii oo hadda socda xisbigii dimuqraadiga dadka doorashada Mareykanka u soo socda dabcan qof kasta marka uu olole doorasho ku jiro ballanqaadyo sameeyaa qoladii marka dimuqraadiga ahayd ee doorashada ku jirtay inay pressure ku saarayaan Obama ay leeyihiin annagu haddaan wax ballan qaadno haddeer dadku nama aaminayaan haddii wixii aad adigu ballan qaaday aysan fulin oo ay ka mid ahayd waxyaabihii ugu weynaa shacabka Mareykanka ay ku doorteen waayo Mareykanku waxay aaminsan yihiin sida warbaahintooda ay qorayso in sumcaddii Mareykanka ee caalamka gaar ahaan dowladaha islaamka ay hoos u dhacday markii xabsiga Guantanamo la sameeyay xiriirkii shacabka Mareykanka iyo shucuubta caalamka gaar ahaan dadka muslimkaana ay runtii aad u xumaatay xiriirkooda arintaana lagu sababayay xabsiga dadka la isaga xiray oo aan maxkamad la geynin oo meel jasiirada dadkii lagu xiray oo lagu dhibaateeyay marka arinta ma isleedahay waa sax in Hillary Clinton iyo dadka kale ee ku jira doorashooyinka inay ku qasbayaan madaxweyne Obama inuu ka dhabeeyo wixii uu ballan qaaday waa arrin ay ka faa'iideysanayaan xisbiga oo mucaaradka oo kasoo horjeeda sababtoo waxyaabaha meelaha ay ku haystaan oo la leeyahay qolooyinkani muxuu ahaa Obama iyo xisbigiisa wax ay mataqaana ballan ay ka baxeen ma jirto balladii ay galeen ay qaadeen ay ku hadlayeen intaasoo sano ay haysteen waxyaabihii qorshihii lagu doortayna ma ayna fulin waa qayb ka mid ah qaybaha ay qolooyinka mucaaradka ay ku dagaalamayaan waxaa kaloo aan rabaa inaan halkaa kasii sheego waxaa jiray nin sanadkan horaantiisii January meelahaas nin la soo daayay oo telefishinada laga wareysay oo la oran jiray oo la yiraahdo Shakir Amir oo RT-da wareysatay oo arrimaha Guantanamo laga wareysanayay meeshaas oo asigoo ku soo bandhigay sanduuq xiran oo yiri aniga waxyaabaha lagu haysto sanduuqaas ku jira adoo wareysigiisa wuxuu ahaa ilaa iyo qiyaastii saacad wareysigiisii markuu dhamaaday oo dhamay rabayna wuxuu bilaabay inuu dadkii oo xiiseynayay waxa sanduuqa ku jira oo nimanka lagu haysto inuu ogaado ayuu ku talagalay raadiyay markii uu sanduuqa furayna waxa oo dadkii uu u muujiyay sanduuqaas inuu yahay ay wax ku jireen taas oo asaga dileeshanay waxyaabaha lagu haysto in wax haba yaraatee aan ayna jirin oo meesha lagu hayo maxkamadda lama geyn karo oo wax dambi lagu ma haysan ay ku andacoonayaan marka Mareykanka madaxweynaha hadda George waxaan leeyahay madaxweyne Obama hadda wuxuu ku andacoonayaa warkiisa inuu meel mariyo xataa xisbigiisa ka soo horjeedo wuxuu ku andacoonayaa inuu meel mariyo in dadka meesha la xiro xabsigaas dadka la xiro asagoo oo ku marmarsiyoonaya waxaan rabaa madaxweynaha soo socdo inaan hawl kale ku kordhinin aan hawsha u fududeeyo si mataqaana madaxweynaha soo socdo cidooda ha qabsatee oo hawshan aan ka rabo culayskeeda saasaan culays ku saaray aan sharabuulay waa tahay engineer Maxamed Maxamuud Cali oo maanta marti noogu ahaa barnaamijka bandhiga Kalsan aad buu u mahadsan yahay isagoo nagala qayb galay dhowr arimood oo fakarkiisa iyo aragtidiisa uu markaa uu nagula wadaagay engineer aad baan kaaga mahad celinaynaa sida aad barnaamijka noogala qayb qaadatay waa mahadsan tahay qadar xayeysiisa kadibna waanu isu soo noqon doonaa inagoo barnaamijka idinkugu hayno macluumaad kale oo xiiso leh daawadayaal